marka hore waxaan jecelahay inaan idinku soo dhaweeyo dhamaantiin kasoo qaybgalka kulankan muhiimka ah ee guddiga sare ee mashruuca Sinaan. Kulankan wuxuu fursad inoo siinayaa inaan isla eegno hanaanka uu marayo fulinta mashruucan muhiimka ah, waxyaabaha qorsheysan in la qabto muddada dhow iyo sida aan u sii xoojin karno iskaashiga si loo gaaro yoolka guud ee mashruucan. Sinaan waa barnaamij muhiim ah oo ay magaalooyinka dowladda qortooyada midowday ee UK FCDO halka ay fulinayso hay'adda DT Global kaas oo ujeedadiisu tahay magaalooyinka Soomaaliyeed ee u adkeysiga u leh isbeddelka cimilada si wanaagsan u diyaarsan si ay uga jawaabaan baahiyaha dadweynaha ugana faa'iideystaan fursadaha magaalooyinka isla markaana ay u abuuraan fursado horumarineed oo cagaaran oo gacan ka geysta yareynta saboolnimada iyo xasilinta dalka. Anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan aad ugu mahadcelinayaa dowladda Ingiriiska taageeradooda joogtada ah iyo DT Global dadaalkooda hirgelinta ee dhanka farsamada iyo maamulka. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda ugu horeeyo oo hawshan door muhiim ah ka qaatay inay si xooggan u soo saarto. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo door muuqda ka qaatay inay bilowdaan howlaha mashruucan. Sinaan wuxuu tusaale u yahay sida iskaashi dhab ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu uu u keeni karo horumar muuqda gaar ahaan dhanka xoojinta dowlad wanaagga iyo adeeg bixinta dadweynaha ee magaalooyinka mashruucan taageeri doono. Waxaan rajaynayaa in marxaladaha xiga ee mashruuca ay diiradda saari doonaan xoojinta awoodda hay'adaha maxalliga ah iyo dhiirigelinta ka qaybgalka bulshada iyo hubinta in natiijooyin mashruucu noqdaan kuwo waara. Ugu dambeyn waxaan mar kale u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan saaxiibadeena dadaalkooda iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in kulanku uu soo saaro go'aamo iyo talooyin wax ku ool ah oo kor u qaada guusha mashruucan. Waxaan rajaynayaa waqtiyada ka dambeeya oo aynu iskugu imaanayno shaqooyinka innaga oo shaqo muuqata qabanay rajooyinka inoo muuqdaana ay ka sii fiicnaan doonaan intii hore oo aan qabanay ayaan rajaynayaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin mashruucana iyo